kulan ay xildhibaanada golaha shacabka ku yeesheen magaalada Muqdisho maanta oo Isniin ahayd waxa ay ku meelmariyeen sharciga shidaalka Soomaaliya 150 xildhibaan ayaa meel marisay codkii loo qaaday 4 xildhibaan ayaa diiday sida uu gudoonka ku dhawaaqay mudanaal marooyin kooramku waa 154 inta diiday waa 4 aamus waa eber 150 ayaa ogolaatay sharciga ansaasuna ansax ku yahay adinkoo maasan xildhibaan Cabdiqaadir Cusubla Cali waxa uu sheegay maanta in dalka hadii ay doorasho laga qaban waayo Febraayo 2021 ay xog ku dooran doonaan madaxweyne waxa uu hadalkaasi u muuqday mid uu madaxweyne Farmaajo loogu dirayo fariin ah in uu ogolaan doonin waqtiga kursigiisa laakiin marnaba annaga yeeno qalbigeena soo galin yaana jaaris ku siinin dad wadankan inay doorasho ka dhacdo aan rabin oo raba inay 2 sano oo extension oo ready proposal iskooda u gudbiyo wadamada qaar internationalka oo raba inay yiraahdaan ma ka gaarnay hanaloo ugu dhagdo hanoo kordhiyo waxaan rabnaa doorasho inay dhacdo hadii modelka one man one vote ku dhici weyso modelada hore la modification lagu suubina laakiin waa inay doorasho dhacdo 2016 oo xildhibaanada 2020 waa in doorasho madaxweyne dhacda raala waxay raali bisirtada raali gudoomiye waxyar 7 Febraayo 2021 hadaan madaxweyne la dooran waxaad ogaataan wadankan 10 madaxweyne u yeelana waa inay doorasho dhacdaa oo madaxweyne koorna waa inuu golo shacab la soo doortaa oo la keenaa hadaan one man one vote lagu keeni karin waa in moodalada la soo dhaafay qaar kamid modification lagu suubiyo oo la keeno ama mid ka fiican la suubiyo laakiin ilaa baarlamaankeena laga bedelo asaga joogayo annaga marnaba option noo yaala ma ahan maxaa dhaca shacabka Soomaaliyeed oo waana fiirsanayeen maanta waxay leeyihiin ragaan waxay rabaan inay iska joogaan oo ay rabo meesha iska fadhiyaan annaga ma rabno inaan fadhino aan bay hadaarto inaad joogto iska joog annaga ma rabno waxaan rabnaa doorasho inay dhacdo madaxweynaha la soo doorto madaxweynahan raali ha ku noqdo labada golo aan soo doortay labada golo soo socoto inuu hortago haday soo doortaan mar labaad oo xukuma hadii la soo door waayeen ilaahay maartay raali ha ku noqdo hadii ilaahay raado waana maasanta wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh